Ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran ee xaaladda Tawriga ayaa ku dhawaaqay in ay 12 gantaal ku tuureen laba saldhig oo ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin dalka Ciraaq. Labada saldhig ayaa ku kala yaala gobolka Anbar ee galbeedka dalka Ciraaq iyo mid kale oo ku yaala magaalada Arbil ee caasimadda Kurdistaanta Ciraaq. Weerarka kadib, Donald Trump ayaa wuxuu isugu yeeray shir albaabada u xiran yihiin wasiirka difaaca, wasiirka arrimaha dibadda iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka. Shirkaas oo socday muddo 1 saac iyo bar ah kadib ayaa waxa uu madaxweyne Donald Trump bartiisa Twitter-ka ku sheegay in wax walba ay hagaagsan yihiin, faahfaahin guud oo ka bixin doono saacado kadib isagoo la hadli doona warbaahinta. Dhanka dowladda Iran ayaa uga digtay in Mareykanku uu jawaab ka soo bixiyo weeraradan, iyadoo ku hanjabtay inay weerari doonto magaalada Haifa ee ka tirsan Falastiinta xoog ay ku haystaan Yuhuudda.